magacaawis maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga gaar ahaan marka xil lagu magacaabayo isku day صح appointment haddaad dhahday jawaabtaada way saxan tahay magacaabis gaar ahaan xil markii lagu magacaabayo luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa appointment haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay hambalyo 2 dhibcood fadlan muuqaalka like saar haddaan cusubtaana soo faalogareeyay maxaa yeelay dhiirigelin bay noo tahay ereyga labaad iscasilid maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga isku day صح step down haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay iscasilid waa step down haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay hambalyo 2 dhibcood fadlan muuqaalka like saar yes okay ereyga saddexaad shaqaalo dowlad maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga shaqaalo dowlad isku day صح social servant haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay social servant waa shaqaalo dowlad social servant hambalyo ereyga afraad muddo xil maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga muddo xil qofkan uu hayay isku day صح term haddii aad dhahday jawaabtaada waa sax term haddii aad dhahday jawaabtaada waa sax ereyga shanaad madaxweyne ku-xigeen maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga madaxweyne ku-xigeen isku day صح vice president haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay madaxweyne ku-xigeen waa vice president okay aqalka sare maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga aqalka sare isku day صح senate haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay aqalka sare ee dowladda luqadda ingiliishiga senate ayaa loo yaqaanaa waayahay golaha shacabka maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga golaha shacabka isku day صح council haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay golaha shacabka waa council congreskana waa dhihi kartaa ereyga sideedaad maamul maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga maamul isku day صح administration haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay maamul waa administration hambalyo 2 dhibcood sarkaal maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga sarkaal isku day صح official haddii aad dhahday jawaabtaada way saxan tahay sarkaal waa official ereyga 10aad madaxtooyada maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga madaxtooyada haddii aad taqaanid kusoo comment